Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo weheliyo wasiirka amniga gudaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho ayaa maantay boqolaal shacab ah xeebta Lido kula damaashaday si uu dareensiyo in dawladda ay ka go'an tahay inay la qaybsato shacabkeeda marxalad kasta oo ay ku sugan yihiin isla mar ahaantana waxa uu ka dhageysanayay fikirkooda ku aadan qaabka ay doonayaan in dalkeena lagu hogaamiyo. Mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha dalka ayaa shacabkii ku sugnaa xeebta Lido oo u badnaa dhalinyaro mid u weydiinayay sida ay doonayaan inay dawladdu ugu shaqayso isla mar ahaantana dalkeenu horumar ku gaari karo, isagoo dareensiiyay in dawladdu ay ku shaqaynayso aragtida wanaagsan ee bulshadeeda. Ganacsatada yaryar ee xeebta Lido ku ganacsata ayuu ra'iisul wasaare Khayre ku dhiirigeliyay inay shaqadooda sii wataan kana xog wareystay haddii ay jirto caqabado haysto oo ka hor imaanaya inay sii wataan ganacsigooda. Waa kuwa qaar ka mid ah dhalinyaradii uu ra'iisul wasaaruhu kula kulmay xeebta Lido oo ka hadlaya waxa uu doonayay in dawladdu ay qabato. ما شاء الله أكثر عن نقطة ذلك هذا وعاون دونتا إن شاء الله. ما شاء الله هذا أفرح سنوات هذا. Soomaali haddaan nahay maanta halka xanuun ugu weyn ma haysto. Waxa waaye dadka Soomaaliyeed oo hadeertan soo qaxay oo dhibaataysan oo qof kasta dareenkaas ku jiro. Ma dhaxdaas masaajid aan jimco ku tukanay. Sheekh ka hadlay dadka dhibaatada haysto. Wuxuu dhahay oo ka wada inoo walaah inta meesha oo dameerka haysto way wadayso. Marka dawladdeena cusub ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo xeebta Lido kula hadlay dadkii uu kula kulmay ayaa tilmaamay in xukuumaddu ay ku shaqayn doonto rabitaanka shacabka Soomaaliyeed si looga dhabeeyo halbeega xukuumadda ah karti iyo hufnaan. dadkaad u qiiroonaysid oo saasaad dadkaad u dhaqansanaysid waa waxyaabaha aan rajada ka qabo inay Soomaalinimada soo celinayso. annaga waa ogtahay dawlad ahaan waxaan ka shaqeynaa inaan isku dayno annaga inaan isku tashano sidii aniga aan dawladda ugu soo biiray dadka Soomaaliyeed waxa laga aruuriyay 3 milyan oo dollar lacagtaas gobol walba Soomaaliya ka mid ah aan geynaa meel walba dad Soomaaliyeed joogaan inta ilaahay idankii dadkeena ay dhibka ka bixi doonaan ma jooji doona haddii ilaahay adiga iyo dhalinyarada facaada haddaad hal dollar isku aruurin kartiin haddaad dadka isku kaalmayn kartiin haddaad wacyi gelin kartiin intaa aniga ii sheegtay qof walba Soomaali arag inaa u sheegtay sii gaarsi insha Allah qalbigana adkaysta dalkan uu khayraaya adiga iyo ninkan iyo dhalinyarada meesha joogta raggi wadanka xukuma lahaa mustaqbalka idinka annaga waa idinkaga tagaynaa meesha intaan joogna laakiin waxaan isku dayaynaa inaan wax yar intaan idin hagaajino aan gacanta idin gelin insha Allah. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa dhinaca kale wadada laamiga ee tiyaatarka qaranka waxa uu kula kulmay dad naafa oo xilligaasi hor fadhiyay laamiga isagoo la qaybsanayay duruufaha haysato oo sababtay inay qorraxda fariistaan waxayna farxad ka muujiyeen dadkii naafada ah dareenka uu ra'iisul wasaaruhu u muujiyay. khayr Allah siiyo adigiisana Allah ku naga gooyo qurbaxnu ma qabato ilaahay waxaan uga tugo wuxuu sameeyay Allah oo ilaahay u sheegay gacantii kor insha Allah. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.